فوقاتن مويه وانت على أكتوجينا الله الله فرحدي إنه الله فرحدي إذا لدن بعدي قد شوكتان مسيو كيف هاي صدق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا ورالها الصوماليين ملك استاد شوكتان أنت مقعي موقعي تقانتك وعدن بيش كيجا قيبت يوتيوب كي قيبت فيسبوك جوا وحنا فريندز كيجا فرها دوبان لا جمعها دادير له عندها في غن له ملك استاد شوكتان أنت فريدة أنت شيفتا أنت هردا أنت صعانيسا أنت كذا كتشرتو دجاه وكتشرا يقولوا شقيسانيسا دمانتين بوينا سلام يا ملك استاد شوكتان ولا هاي وصود وهذا إن شاء الله أنت شقة كتشرتا waxay leeyahay waa walaashin xamti kaga cala hore uga badarteen inay bariyahan nabadoon noqotay nabadoonkii beesha ma garanaysa Soomaaliyeed oo dhan waxa way cayayaan yar oo arkay meelaha habra yar iska ka haysta laakiin waxa uu ma joojinayno horaan u sii socon doona insha Allah ilaahay idankiisa caawa halkan waxaan inigu soo gudbin doonaa insha Allah war farxad leh aad ku wada farxi doontaan baraha bulshada bariyahan bas sidaad u ogeydeen waxa isku haystay habla ma garanaysa fanaaniin amba jilayaal sidaad ogtihiin riwaayadii maxaa la dhahay qoto ama maxaa la dhahay kaafiya kala dheeri ka soo muuqan jiray bariyahan ba wad ogeydeen dagaalka xitaa laftigeyga qayb baan ka noqday laakiin ma sha Allah way cafinay walaashin muna caawa waxaan inoo soo qaban doonaa insha Allah walaalaha kale ilhaan xarako kow ka tahay muna laba ka tahay iyo naciimo wada hadal dheer ka bacdi anaga call dheer wada qaadanay waqti dheer ma sha Allah tabarakallah inaan ka noqday nabadoon anaga iyo maxaa la dhahayay
walaashayda qaaliga igu ah October Ismaaciil Dayib oo iyaduna igu wehelinaysay booskaas oo ma garanaysaa aan ka shaqeynay nabad aan ka shaqeynay hablaha inaan dhex dhigno ma sha Allah ilaahay baa kartidana siiyay ayaguna ma sha Allah habla qalbi wanaagsan oo aad iyo aad noo soo dhaweeyay oo ma garanaysaa ay na sharfay ilaahay ha shafre ayay ahaayeen waxaan wada hadlaynay saacado fara badan saacadii ma screenshot ban ka qaateen ala shaydaan ku yaalamay waar ma screenshot ban ka qaateen waar ya ilaahay oo wadis yaqaana waar screenshot ka xaqiiqa aadi waxaan wada hadlaynay hal saac wayni soo dhigi doonaa hal saac iyo laba saacadood iyo 30 daqiiqo laba saacadood iyo 40 daqiiqo xitaa waan sawirtay meey hayay waar sidee wax u jiraan waar screenshot ka mar buuna qaadaynina ya waad aragtaan waan filayaa sawiradoodii khayr Allah siiyo wanaga aqbaleen waa cawaye maxaa calanka Djibouti wuxuu u saaran yahay ilhaan xarago muna ku xigta waxa ku xigta maxaa Naciimo waxa ku xigta October Ismaaciil Dayib aniga waxaan ku noqday 5 qof maxaa loo dhahaa kolku 5 qof ma qaado wali waxa wakiil inaan soo gelinaan rabnay iyada kol kale ku hadlaysay uu noo soo qabsoomo waayay waad aragtaan ma sha Allah sheer gareena alla shaydaan ku yaali waa sheer gareeya ما واحد دون سنة أنا عايدة يوم مركن تدك تشوف إنه شهر قريسان وأنا شهر قرية وهذا ركتان هبليه عاو أنت والله هذا اللي ما شاء الله تبارك الله الله بس عضاد يهودو ويا أنا فهمت أكو سوردو دي سمعت ده أي فرمت حلقة سباشالي فرحت بقيت عاوة إن هالشيسية أن كمل نقضي ضدك وجوه الرئي ما شاء الله كذا البضي ولا الله ما أنت إن هالشيسينه ما شاء الله تبارك الله waxaan ku codsanayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta joogan inta baraha bulshada ku jirta sideedoo kale inay ka shaqeeyaan nabadda ka shaqeeyaan wanaaga ka shaqeeyaan horumarka ka shaqeeyaan sidii hooyooyinka Soomaaliyeed oo baraha bulshada cayda isku marinaya amba is aflagaadeynaya sidii ma garanaysaa ay uga joojin lahaayeen 2 saacadood iyo hadda waxa ii sawiran 2 saacadood iyo 12 daqiiqo iyo 16 ilbiriqsi inaan la hadlay ma sha Allah hablahaas 2 saacadood ma chance yar baa ablaay بايا لما تشاهد ما chance yar baa adan ku dhibay وين أشير قريسان ماركتان ما شاء الله تبارك الله الله يعسك بان ليهاي واحد من كريواين رجوا وين ده قبضن نيو قبضن كبر لوجو معانا شبان عن عبان سيرة فانية سيد عبان سيرة فانية سب قبضن كبر لوجو معانا شبان بقرات إنا يتهاي ولا له قرقار تشلا إسكو كنتي ما أنتنا ولا له إسلايي براها بلشة إسكو مرنية عادي يفلقات إسكو كنتي ما شاء الله تبارك الله نعلى شيطان خياله نعلى شيطان خياله قلت فا شرطة إسية إنه قلنا ده وحوية محكمة دي مركا قاديجي ما كان نقضي عاوة وصور دمية إنه قلنا ده وحاتين حالة ده هي النيو أعتقد كلام حالة ده هي ورجع صاري هنا وحوها أعتبر اسماعيل ضيب هيدا يا مركا وحوية ده كبرها بالشدة إسكولاية محكمة دولة وحوية وفيسبوك ده ودكتين يا فيسبوك ويان marka hablaha soo qaban doona insha Allah u share gareeyo tabar share gareeyo de habluhu waa fanaaniin waa dad qaal nagu ah waa dad caan ah kuliyo gobonimo ma sha Allah rageedi wakaas wararkaas ay mara sheerta igu caawiya asxaabtayda sidee waaye hadda share gareysid hadal wanaagsan hadda soo qortid guul hadda soo qortid hore u socod soo qortid waxba waa halgan way anaga dhan ba halgamayna hablaha reer UK waxaan leeyahay waad ceebowdeen hadday tahay fanaaniinta UK iyo hadday tahay jilayaasha UK iyo hadday tahay waxa UK joogo dhanba waad ceebowdeen hablo gurigiina dhexdiisa jooga maalin kasta baraha bulshada wax xun isku marinaya is eriyanaya is caayaya ayad isku tagtaan waliba guriyihiinii aad heshiisiin kar weydeen inigu xaafad isku yaqaano isku arkaya ayad heshiisiin kar weydeen war anagoo Jarmal iyo Canada kala joognaa maanta hilfaha u qaadnay October Ismaaciil Dayib qalooyada ma u horeysiya October ma u horeysiya October ma ku horeysiina ما شاء الله ولا لدي أنا قاعد دلبني أنا قاعد عفيس كويدسني أنا قاعد كنير مقرنة ساي أنا قاعد مون أنا كنير مولا ولا وقبر هبلا ولا لها يا عفيس نستحنا سوري نستحولي يدا بدي نستحلفتي كده وين انقلنا وين أنا نستحلفتي كده ليش كده نسوق لنفسي تفوسي إفكو كلا إن شاء الله وما نبكوح من كيرنا إن شاء الله المحل ده نعيمه يوم محل ده هاي إلهان حرقو يوم محل ده هاي اللهم صل على محمد منى وحبوا وسوه شيء سني 2 saacadood oo waxaan ku wada hadlaynay call ah sharaf iyo cisiyo karaamay noo tahay waxa weeye walaalaha Soomaaliyeed aan heshiisinay oo heshiiska dhex dhignay oo maanta isku faraxsan waliba aan jecelnahay idil cadda inaan ku soo qabanaa rabnay laakiin waan lagu qorin laakiin WhatsApp-kan ka soo qabanayna marka codkooda dhageysatid insha Allah waan lagu qorin ma garanaysaa nagu soo dhex gashid maadaama aad gabadh fanaanada tahay inkastoo aadan dagaalka soo galin laakiin haddana waan jeclaan lahaa caawa kale waan iri
maxaa la dhahaayay ilhaani waa ii maqaartay inaan nidhi han soo qabano maxaa la dhahaayay fanaanadeenaana sharaf iyo cis iyo karaam inoogu soo dhamaatay waxa weeye 2 saacadood iyo hodhodho baan la wadaa 3 saacadood wax yar baa ka dhinaaday salaadii maqrib baa noo soo gashay waa kala yaacnay haddana leefkii baan usoo galnay waxa weeye walaalaha Soomaaliyeedow waxa weeye maanta ala shaydaanku ala nagu tufa maxaa la dhigi nagu tufa nabadoonadii wixii Facebook isku lay anaga WhatsApp-dooda noo soo gudbiya waad aragtaan share gareeya please share gareeya waad aragtaan 2 saacadood ma dhayalba 2 saacadood iyo hodhodho ma dhayalba 2 saacadood iyo 12 daqiiqo iyo walba intaas oo ilbiriqsi weeyaan waad aragtaan ilhaan xarago muna muhiim iyo maxaa la dhahaayay October Ismaaciil Dayib iyo Allahumma salli ala Muhammad naciimo waa kuwa magacyadoodina xagaas ay ku qoran yihiin waad si calashan wuxuu soo sheegaya baarta inta qof aan nahay soo sheegaya ma sha Allah waa guuliga gobonimo waa guul noo soo hoyatay waa guul hablaha Soomaaliyeed noo soo hoyatay ragga Soomaaliyeed oo isku keen daawanayaan ragga Soomaaliyeed way isku keen daawanayaan ma ogola ragga Soomaaliyeed inay ma garanaysaayay dhex galaan baraha bulshada aydeed iyo maalin kasta waxay doonayaan aflagaadadeeda inay ka socoto marka muhiimadu waxay tahay kulay waa daalan hablaha 3 saacadood oo dhawaan wada hadlaynay waxaan ku dayeynaa insha Allah qofka ugu horeeya inaan wacno isku dayeynaa mudnaanta koobaad aan siinayno haduu Ilaahay idmo share siya aniga share igu hambaliyay sewa share كتف gabadha orinteeda kutuf heblaaya kusoo tufaysay hamoodina tuftiinkii caydaha hamoodina de waar ku tufniinka waxa sheegaya shartaniyo armay ay dhaqna kaga soo siiyaan waariya ilaahay umadiisa yaqaana waxaan isku dayaa inaan 3 habloodba soo wada qabto sidii aan ugu wada jirnay marka hore koolka inay 3dooduba hal meel iskugu keena haddana insha Allah ilaahay idankiisa October ba u horeysinaya maadaama nabadoonki meesha ka ahayd iyadu October ba u horeysinaya kabacdi muna ku xijinaya ilaahana ku xijinaya waayahay October baan horeysanaa October maadaama nabadoon ilaahayd maanta abalyadan ka dhigi doona insha Allah umada Soomaaliyeedna bal waxay yara taaho waa ku kaabisadeeda meelaha la warwareegaysa October tii naaqabada October hello abay dagaal ma jiro waxaas waa dhamaaday anaga soo afjarnay maxaa la dhahay qaadigii maanta maxkamadda dadka saarayay waa kale waa jooga assalaamu calaykum soo dhawaad October عليكم السلام ورحمة الله وعليكم مقليا كسعة إن شاء الله واحد كله ذي هل يلبا ما أنت فرحدي يجوشي أنجاني ولا له إن الصوماليات أو أنت أصلا برها بالشدة ولي برهر يو كنا فرين تقصي مرد هودا ولا عليه كسعة ولا عليه هرت أنت ساعة كعذر دارت إن هذه سوق اللسان أجرك ما في عنا أجرك مع صدقات ما صدقات بحنا زيبا ما صدقات غفوت دري زيبا والله ضد قلوبته ذا وناق لقول حبيره وصدقات وقوين ما شاء الله لكن ضد برها بالشدة دوه هذا وحنا كل عين وين مغلان ما شاء الله هرت إلهي ما حد وصغناتي ويحي حمانو هالكاد عينا الشيطان بوصغناتي aad waxaan ugu mahadcelinayaa gabdhihii iskhilaafay oo haddana naga aqbalay ayagu ruuxooda mahad gaar ay leeyihiin marka muna ilhaan naciimo tahliil ma sha Allah ayagu way naga aqbaleen inay heshiiyaan halkaasna ku soo afjaraan xumaatadii dheereed ee muddo socotay ayaamahan waxaan kaloo u sheegayaa baraha bulshada deef ayagu fanaaniin bay bisi yihiin oo waxay yihiin image-kii dadka ayay yihiin image-ka dadkan deefanka ku jira waa dadka wanaaga fara marka ayaga ruuxooda in lagu daydo dadka kale ku daydaan wax wanaagsan bay u tahay ma sha Allah wayna ku mahadsan yihiin intay naga aqbaleen reer Londonna waxaan leeyahay dabka aan wadaan dimiya gabdhuhu waa gabdho hooyooyina waa gabdho Soomaaliya waa gabdho walaalo ah waa gabdho fanka ku jira intaad nabad iyo xasilaan aad ku kala yaani waanin lahaydeen in dab lagu shido ma ahan marka guuli gobonnimaan leeyahay wayna naga aqbaleen ilaahayna ku sii wado ha ka dhigo dad walaalo nabadda sii wada ما شاء الله انت سيغتها مبروك باندحيا ما شاء الله تانكين ادرو ما هدسنتا باي هاي
taasi waxay ahayd October Ismaaciil Dayib oo ahayd maanta qofkii ma garanaysaa ay nagula dhex jiray hawshaas ma garanaysaa aan wadnay wallahi habluhu kool dheer bay qaateen waan ka cudur daaranayaa umana sheegin inaan leef soo geeyo waa iska soo jafiir xamdi waa taqaantaan bal aan wacwac ariya ilaahay yaqaana war magacyadoodii maxay ii qornaa war maxaa ii qornaa waayahay saddexdoodaba inaan isku keenaan rabaa hal mara marka mid soo qabtay aamus baan dhahay khadka ku jir intay ta kala ka qabanayso saasa fiican moogta iyagoo wada jira biyina kuma qashaan waayahay hadda ilhaan xaraga ayaan u horeysinay saad aragtaanba ilhaan xaraga ayaa noogu horeysa waxa weeye waa daalan maqribna waa taagan tacal kolley anaga dayagu waan kala dambeynaa maasha allah hal saac iyagu naga sii dambeeyaan maqrib anaga waa maasha allah waa kala tuurnay ilhaan ba qabanaysa waxaa ilaha yaqaana waynika ilhaan xaraga qaban weyday hayaay meesha reer yuko waa filin kara aad igu xiijinaysa walaha filaha talaahi sheer gareeya way qabanayaan maanta dhan bay ku jiraan 3 saacadood baan wada hadlaynay leefkan uma sheegin waa ka cudur daaranaya insha Allah waxa weeye waa dhaawale waa ku dhufanaya waayahay Naciimo Tahliil baan ku xijinaynaa aniga waa arko adkeen bay keeneen wareeriyo ka oo si on bool hooyay walaal screen shot kii inaga haya codad kama doobine ana codad waxa ma doobe ugu filan badeen anigu inaan soo sheegay ugu filan iyo sawirradooda kaliya aan soo dhigo hareeriyo kay maqrib waa laga baxay maasha Allah laakiin anaga naga sii dambeeyna saacadeeda anaga waa laga baxay anigu hadda 9 kiiba inii tahay 50 iyo 5 ba inii tahay reer UK waa fahmi karaynaa may anaga 9 kiiba 55 noo tahay 8 iyo 55 ba inigu inii tahay wallahi meesha filan ka socday cod baa la soo doobay aan hoos u dhageystay sak يا هذا ها لفن ku jirnaa ka soo tur qaba balka waayahay cod dalay soo duubay leefaad ku jirtaa waa ka xumahay wallahi uma sheegin muna waxay soo qortay abaaya macaan waa ku soo wacaya isug hooyo ayaan la hadlayaa maasha Allah abaaya hooyo aan la hadle abti aad baan ka xumahay waxay tir abaaya hooyo ayaan la hadlayaa abtigay ayaa dhintay bay tiri tacsi aan ku soo gashay tacsi baadna soo gashay nisug walaashin muna soo qortay maasha Allah waayahay tacsi baa soo gashay muna saasa inoo soo sheegtay kolley laakiin screenshot keeda ku filan aynu soo dhigayno kolley iyaguna leefafa isku soo galayaan waayahay wadib male waxa weeye sheer gareed inta aan soo sheegnay waa dadeen ما حناقصنا والله ما حناقصنا 3 ساعات من sheekaysanay 3 saacadood naag u xanaaqsan ma jirto ilaahay googiya ma fahanteen sharaf iyo cisiyo karaamay ku soo dhamaatay iyo naga daay shaydaanka markaas aad naga sii dhex shaqaynaysan ma inta leefka isku diyaarinayna hoosta la iska dilay karo waxaan wax ka wadan reeriyo lama aamine ya aska kaftabayna inantaas tacsiibaad gashay hooyaan la hadlayaa tirkolban ku haya muna ma sha Allah marka hore muna waxay dalbatay inaan Naciimo la heshiisino maadaama Naciimo oo maantii hore ma garanaysaa ilaahay ha u naxariisto muna abtigeed waa run ilaahay ha u naxariisto waa mahadsantiin hablaha inahay la naxariisto soo wada qoritaanki waxaa ducad waa loo baahan yahay muna tacsi ayaa soo gashay sida inoo sheegtay ilhaan xaraga waa inay telefoonka qabataa waayo waxaan ku jirnaa leef marka insha Allah ilaahay idankiisa waa sugi doonaa igraan caaga xagga bayga ma arkay saddex halkaasaan ka arkay soo qoraa marka dib male waa iska samrina dadka kale walaalahay ah oo magaranaysa lambarkayga haya waa soo wici kartaan waad u hambaliyeen kartaan hablahan waad magaranaysa sii waani kartaan reer UK-na fariin baa u fari doontaan insha Allah qof kasta oo telefonkayga haya waa soo wici karaya meesha kuma qoran laakiin intii haysan sheegaya muna abtigeedna u soo qora inuu ilaahay u naxariisto maxaa dhahaayay janno firdawsi Allah inuu geeyo waa mahadsantihiin asxaabteeda meel kasta aad joogtaan muhiimaddu waxay tahay arinta caawa say ku bilaabmatay muna ya October is jiidanayaan isoo wacay kale markii hore muna dhowr jeer isoo wacday markii dambana maxaa la dhahaayay
waxaan ka qabtay muna iyo atobros la socda waan wada hadalnay wada hadal dheer waxaa ma garanaysaa noo dhex maray inay muna dalbatay walaasheed Naciima inay iscafiyaan markay iscafiyaanna waxaan ka dalbanay muna inay ilhaan wala iska cafisayadana ilhaanna aan la hadalno okay bay tiri ilhaan ban hadana wacanay muna intaan dejinay ilhaan baan sidii kula hadalnay labadii waa is aqbaleen ma sha Allah tabarakallah guuliyo gobonimo ku soo dhamaatay walaalahayga Soomaaliyeed oo assalaamu alaykum soo dhaw walaalo qofku horeey hello toos waad ku jirtaa Facebook waa laga maqlayaa caaw waxaan heshiisinay hablihii baraha bulshada baryahan bay isku haystay ما شاء الله تبارك الله قولي قبني بيكسر دماتي ما حد كله ده هال إري لبا إري رير يوكي هذا تاين الدوات كتير تعدادك محل يوكي شو قدرت كهشوسين كريوائي صاني حتى كوسو قراي ناقا بيترو اتيشن الرادين ويساو هذا نعم حيسو ويسير يوكي قال دكي next time بها قرت قوينترو كوسو قراي and هرت ما شاء الله أضاف وجوه الرينا يا براب برشال إسكسو قالوا هني هذا الماء ما شاء الله كم مرة به تبرت الربا يشرفت الربا يوناق الربا ضدك وناق ولا لك أحدقه مرور بشرفتك شقايو قف كاسو قفك وهديك ناق ما حتى دور شد أول بقرتو هذا خيبتك قبلها حتى أنا كمر لبات بقوش من هنا يبرتحات يمر أفراد ما شاء الله وفي عمد والله كشقيسي إلهي كل قرب قال أبايو مركز أنا فاصل بشقيه قبلها ولا لا وإلهي قلبي جود يسكت وشيء أو مثل ما كان الله هذا إن احترامتي لبص عضاضي أفرط دقيقة وده هديني مثل اللي بنوسو استاكتي ما شاء الله شي شرف له واللي بولاش المونا أي سور هذا الشيء ولاش النعيمة إنه هفشيس لقى شو عفس ويديسته ما دام سير لودي من أيو نعيمة أنا عن الله هذا الني نعيمة إنه استاكتي ناقب صانتي خير الله سيران تنهبرت ونهاي أيضا إنه استاكتي كبعد عن كل النعيمة هنجتك النعيمة أي تري ما دام أنا هبلي ولا له حمدي أدنى ليش أنا له شيء إلهان حرقاء يشكل عن كلام قالنا أنسدي إلهان نقول قال لي إلهان الناس استاكتي ما شاء الله قولي قبل ما نوقف صار ما تيسد حساء عضاض لا تنتقي لا أنا وده هذا سكرين شوب كان كهاي هذا فيسبوك صار قدامنا ما حد كله ده بلاسنا ما شاء الله ها وبأسر سعيد مرتك وهذا يكون بصور بقصفكم مركو ورث فعل كله هذا ما شاء الله حسنات بدني هاي إن أياكي إنك أقبلين كشر فينا وحسنات كله ما شاء الله إن منا هذا كور مرمروح على تقلب جد سوء ناقصية إلهي مركز تعالى بجرها وناديه قفك مركز تفوق جيفنس كفي عنله وقفك إلهي تعليه بس إلهي وحده ومضي يروح وجع لما تكتو قلده ما هذا نكسر النقطة marka ma sha Allah ayada leedaheena gabadha kale nimco ayadana ka qaabishay ma sha Allah nimcata lil personal waa jeclaani markii wax jilaysa taa waa jeclaa miyaro ma sha Allah hani maxal dhahay ilhaan araba sidoo kale ma sha Allah waxaan leeyahay dad kala dhicina wadatiin maalin walba iyo waqti kastana wallahi waxaan leedahay haybad gaar ah because waa isku tanashusin waa ka wada maaragtay qaadateen dadkan way isku dhacaan Soomaalida xukuumada maadaa'irka iyo Carabba isugu dhow way isku dhacaan marka ma sha Allah dadkan waxa ugu fiican dadkan isku dhacaan hadana ka gudbo ma fahamtay marka waxaan leeyahay hambaliyo dadka wax dheer tihiin dadkii u aamusnaana waa run oo UK aniga ku jirana waxaan leeyahay dad xunaanahay laakiin khayrka adinka noo qaadateen waan kugu hambalyeynaa ma sha Allah xamdikal gacal mar labaad mar saddex rabaayo waan ku sii deynaa insha Allah thank you walaashay aad baa mahadsantahay waayahay aad baan ugu mahad celinaynaa saddexdii hablood oo maanta sida sharafta ee wanaagsan ee ma garanaysaa waxtar kale ha nooga qaatay habaryar nimco aan garkii jilbaha ku dhagnay walaasheen muna aan garkii jilbaha ku dhagnay walaasheen ma garanaysaa ilhaan xarago aan sidoo kale idin garkii jilbaha ku dhagnay guuliyo gobonimo inoogu soo dhamaatay waa mahadsantihiin maxaa la dhahaa inta dad isoo wacdan dib weegaya qofka ka soo horeeyay weeyaan waxa ugu soo horeeyay lambar isaf garaysan asaga waa soo dhacay walaa leefan ku jira ma la socotaa ku sii daayay codka waan kuu furay ku soco dalxa aad baan u salaamayaa horta daawadayaashaada iyo bulshada meesha ku jirtay muxuu ahaay dhammaan walaalaha daawan doonaba waxaan rabaa muxuu ahaay inaan uga qayb qaato ku soo wacay live-ka run ahaantii waa waxa wanaagsan ee aad samayseen inaan hambaliyeeyo waxa ugu wanaagsan bini'aadamku sameeyo acmaashooda waxa ugu wanaagsan waxa ka mid ah islaax bayna naaska inaad walaalihii wax kala gaadheen iminka u dhaqaaqdeen oo aad masaalaxdeen inaan idinku hambaliyeeyo in muxuu ahaa ma garanaysaa ay tallaabo wanaagsan ood qaadeen hore u qaadeen tahay
inta dhimanna inaad dhammaystirtaanaan rajaynaa biidni illaahi albaari. xamdi kalgacal ahaan adigu waxaan ku leeyahay dee adigu horeyna waadigii ku boqoranood muxuu ahay boqorad noo ahayd oo aanu kugu caana shubannay. haddee inaad kasoo dhalaashayna waanu dareemaynaa oo miraheediiba waadigaa iminkana tusay oo muxuu ahaa ma garanaysaa nabadooninaya. mar walbana dhanka nabadoonnimada inaad xigsataan jeclaan lahaynood qofka wax isu soo jiidjiidan noqoto. carab iyo daan baa isugu dhowo bini aadam wuu isqaniinayahay inaan wax badan aad loo qaadqaadin oo dhanka samaha loo wada jeesto. hadda inaan ku hambaliya iyaan kuu sawaca boqoradayda iyo aad baan kuu salaamayaa. actifayste wanaag jecel khayr jecel wax badan oo wanaaga fala miyaan kuu aqoonsanahay. aad baana kuu salaamaya adigii bulshadaadaba ku dheeraan maye. thank you naadir waa mahadsantaha. marmarka qaarna hadda dadka waan ku tufnaay hoosta munaafiq waan ka neewar mahashaan saasaan dadka ku tufnaa qabyaalada meel kasta sheeko kasta waan naqaanaa waxaadna ka taqaantaan annaga aamina ku celinaan kala isaf karaysan baan ku ceshanaya aamina la dhaho intay habluhu soo gelayaan insha allah. naciima way joogtaa way daawanaysaa wayna sheer garaysay. ilhaan ma aragno munana dee abtigeed baaba dhintay. markaas waan kusii socon doonaa barnaamijka. soo dhawow aamina walaalo. waan dhawahay kalgacalka umada soomaaliyeed aad baan kuu salaamaya walaalkaani waad mahadsan tahay dee nabadoon baa tahay oo fanaaniinta UK waxay qawaayeen baa qabatay taariikhda ku xusi doonto aadna waa u mahadsan tahay. markaa kasoo laabto gabdhaha walaalay heshiin waxaan leeyahay hambalyo mar labaad iyo mar saddexaadba. taas markaa kasoo laabto yaroo dardaaran baa siinaya oo waxaa tihiin dee fanaaniin sharaf iyo qiimo iyo karaamo leh oo waxa waa idan daawanayo shacabiyad aad u fara badan baa leedihiin. ummadda soomaaliyeed dhan baa ida daawato. markaad caytantaan afkiina baa la fiiranayaa. markaad caytantaan oo aad faraha bulshada soo gashaan dee dadka muraayadda baad jabayso dee waxaan nigala filinaynin in la dhalataan bay la noqonaysaa. sharaftiina ilaashada karaamihiina ilaashada waxaanan idin qalmin dee yaa tayen dee waxaan ku oran jambalka idin tuurano dadka isku kiintiraya waa dad sharaftiina iyo karaamihiina ku ciyaarayo horumarkiina iyo fanaannimadiina iyo jiraynimadiina kasoo horjeeda. gabadha looma ogola quruxda, gabadha looma ogola inay agtara tahay, gabadha looma ogola inay tahay fanaanad qurux badan. bura-aadankuna sidiisaba asagaa lugta isaga istaaga. marka hadalka u badan maayo in adeer waxaa leeyahay gabdhaha sadexdooda inta heshiisay walaalaha ah nimco iyo ilhaan iyo muno waxaa leeyahay waad mahadsan tihiin laakiin ha u laabanaha mardab. adiguna si weyn baa kugu mahadcelinaya walaashay sharaf. fanaaniinta UK-na waxaa leeyahay waxaa isugu jirtaan dad waladaba beri ahaa taariikh baran lahaa iyo qaar dhaxa iyo qaar kukuratee meel dhaxa ah. miyaad heshiisii weyseen afar gabdhood oo dhexdiina isku dagaalay idinkoo intaasoo sana gabdhahan daawanaya ama ku raadsanaya ama murayadaha waxaan ku yidhi shaashadaha soo gelinaya ama kaamiramanada u ah ay ka duubaya. miyaad heshiisii weyseen 3 gabdho ama 4 gabdhood oo walaalo dagaalay miyaad heshiisii weysaan baa leeyahay. marka dadkii heshiisiin waayey gabdhahan dagaalay waxay kamid tahay inay ayaga isku diraayeen. waxay kamid tahay inay ayaga jambalka isku tuurayeen. war gabdhaha ayaa la isku jiban baa leeyahay reer UK iyo kaamiramanada meesha jooga kutaandinaadeer aad baad u mahadsan tahay. dhib ma leh waa laga bixi doonaa insha allah. waana ku dhegeysan doonaan fanaaniintaas ama dadka reer UK maamooyinka reer UK jilayaaga kuwii la matalaya waxoo dhan. marka aad baa u mahadsan tahay. waxaan rajaynaynaa xafladda UK ka dhici doonto 3 bisha hadduu ilaahay idmo. bisha caawa 26 4 cisho ka bacdi inay iyagoo gacmaha haysta istaadahaynaya isku faraxsan inaan ku aragno insha allah. maasha allah waa ida daawna anaga reer markaad stress dareeno oo markaa xoogaa culays dareeno waxaanu dawar heesta ilaa xaraga nooga tuur ama heesta foosii ifka nooga tuur baan dhaxlayo. war dadkii aan daawanaa tahay oo stresska iskaga tijin oo noo wacay keliya oo wax walba naga xaqabteebatiin waxaan ku afar laasaasa mureedaada ka daawanayo lacag baa idinku daawanayo sharaf iyo cisigin iyo karaamadiina idinku ciseynaa. idinkana maaha marka inaad adiga Soomaaliya jooga $20 YouTube-ka ka cuno maalin kasta ayay doonayeen inay maalin kasta dan haystaan. ولو إلحان حاجة تاجر وينو أمبنت وأشياء أفر لها ساعة بروفيل كذا من يوتيوب كذا طريقاً كي يضاف الإلحان حاجة مركب كسر يوتيوب كي إلحان حاجة تقار كذا مركب إلحان أنت فنانين تاجرياش إلحان حاجة تاجر بيله ده هاي كبرها كلا تاجر بيله هين شلايش تاجر بيله هين
marka anigu inaan xariga markay filmka soo gasho kowda hor qofka indhahayga qabtaan oo aad taageero ayada marka waa ka baxda marka la yiri ma daawan xitaa filmka jahada socod wallahi ma daawan qaybo oo hore oo lagu soo daraa arkaa qaybteeda markay ka baxdo waa ka tagay because taageero baan wahay marka waxaa leeyahay maada walaalaheena fanaaniinta ah ee babaha ku nool waxaad joogtaan weliba wadan gaaray wadankiina ma joogtaan intaad isgacmaha isqabsan leedeen oo aad waxaan ku iri soomaalinimadiina waxaan ku iri cadday laheedeen oo aad waxaan ku iri dadka wadan gaala inaad joogtaan intaad isdareysiin leedeen maaha marka inaad jambal idinka niilo tuuro oo aad isdagaashaan waa ceeb waxyaala idinkan dadka maba ku jirtaanba markaad maqasho fanaan markaad maqasho fanaan waa macnihiis fanaan dadweynaha inuu wacyi geliyo weeyaan maaha fanaan ay tamay waa ceeb fanaan baraha bulshada soo baraysto dadka aflagaadina ama qof kale u shabaabaya waa ceeb maxaa idinku daawan annaga lacag baa idinku daawan dadkan kalaa daawan lahayn ma fahamtid ummadahan kaloo socoto aad baad u mahadsantahay inaader thank you hadalkaa kugu badiyey amiirka ummadda soomaaliya galgacalka ummadda soomaaliya labadoon baa tahay inaader caleemasaar weyn baa u baahan tahay waxaan ku weri war waxaa leeyahay reer UK iyo reer London wix meesha joogo dhan waxaa leeyahay gabadhan caleemasaarto intaasoo kun bay kasoo baxdayo kaameramanada iyo hobalada waa beri idin heshiisii waay markay idin kasoo dhaxday ayay idinka idin heshiisisay walaale waxaa tahay dee gobgob dhashaa tahay waan ku salaamaynaade thank you naadir hay waayahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaa soo gashay khadka walaasheen muna marka u horeysa ha loo tacsiyadeeyo walaasheen muna abtigeed muna xamdi ma ka saara speakerka sug ilaahay abtigeeda ha u naxariisto muna waxay ku jirtaa mood waad aragtaan maxaa dhahay abtiga ilaahay horta abtiga muna ha u naxariisto muna may maqlaysaa moodka xagaaga mood baa igaga jira waan arkaa kalaan isku soo wada galaynaa tacsiba hadda soo gashay waad maqlaysaan atoobar codkeeda sug atoobar codkeeda waad maqlaysaan muna iyo atoobar baa isla socda muna waxay ku jirtaa mood qof tacsi ku dhacday hadda oo degdega oo soo gashay abtigeed ruma weeyaan hooyadeed la dhashay marka muhiimaddu waxay tahay atoobaray fariinta adaa u hadlaya muna maxaa tiri ummadda waa ku maqlayaan maya insha allah muna mar kale baad ka dhigan doontaan haddana aad abtigeed hooyadeed la dhashaa dhintay faamilka tacsiba ku dhacday marka insha allah bidnillah waa inoo mar kale adduunka waa intaasoo iska yahay waa ninkaas adduunka waa intaas aad baan ku salaamaya waayahay waad maqlaysaan atoobar iyo waxa muna isa jiidanayay muna way ooyeysaa abtigeed baa dhintay waad dareemi kartaan qof naxsan maxaa la dhahay waalidkeed ma garanaysaa meesha ku dhintay maanta tacsidii joogta ooyeysa inayna ma garanaysaa farxad iyo reereen iyo telefoon ka hadal iyo leef galtoona ayna u joogin ma fahmaysaa amba aanoosa hadda leefka lagu jira hadii lagu dhaho abtigaabaa rawaxay abtigaa tiriye geel jiro beri aan isnaqaanay de waa cararaya waa isdaminaya runbaa fiican ma fahantay marka geeri naxlin laa ku timid walaasheen walaalaha kale ayaan isku dayayna insha allah qadadka ku jira inaan soo dhaweyno assalaamu calaykum hello soo dhawo walaalo reer UK waa waxa weeye ingiriiska waxaan kuri baalaha la iska rifayaa soo dhow ma jira caamel heshiis jirin iyo gogol casbaan waday roog casbaan wadaano dee roogii casa inagu waad la habsaanteen haddaad reer UK tii waa inagu tufaynaa dee waayo intaasoo dhan bay habluhu isdilayeen isrifayeen baraha bulshada inagu waa iskaga kaya dhadhowdiin xaafadaha annaga iniima soo gaadhayno inaad heshiisisaan soomay ahayn horta walaalay waraa kustiiye horta anu walaalay dadkan soomaaliyeed mucjisa ku dhacday mucjisa weyn baa ku dhacday waayo dha walaalo walaalay madaxdooda wadankooda aragtaa waxba kaama qarsoona maxaad xamdaay walaalay fanaaniintooda aragtaa walaalay dadkan waxa ku habsaday waa garan waaye dadka walaalay fanaaniintii bay ka bilaabanta walaalay madaxda dacjika dee soomaaliyeed kaaba sheekanaysa waa watahayba walaalay mushkiladda inta leega ummadan saaran baan garan walaalay kuwa fanaaniintii baa islaynaysa walaalay kuwa ruwaadooda tini baa islayn walaalay waan fahmi lahay waxa dadka masaajida dadka haysata waxay yihiin waxaas ragga ku dhex jira war ma hayside waa rag walaalay ragga suuqaa diray dadka horta dhegeysa walaalo soomaalidu ma wada doqomaa dumarkoodii mise walaal xanuun qabyaaladeed baahay walaalay adiga laguma kaa diri karo rumaan ku sheego adiga laguma kaa diri karo dee هذا وين adiga wajigaan kuu bartay maxaa qofkan iga galay aan kaa saaxiibada qofta
jiraan aranka saaxiibada waa saaxiibada anigaana maxaad imika kasoo gudub wixii way dhammaadeen annaga taa caawa dhan waxaan 3 saacadood ku gaadhnay taasay ahayd waxaan sheegayaa dadka fanaaniinta iyo dadka jilayaasha dad fiisan babliga keenina inteena qartada telefoonada dadaan iska caaya babliga keenina inaad dadkii hore fanaaniintii hore way isdili jireen way iscuni jireen laakiin de facebookan de ma garanaysa qof walba isagu TV ka yahay mobilkiisa lamu jiri jirin moogta marka de waxa weeye halka umay baalaas kaga rifiyeen iskaga tagayeen meel xataa soo mariyaan meel wax noo soo mariyaan dhinta noo soo reebi lahaayeen marka dib male abaayo thank you baan ku leeyahay xamday meeyso walaalo anigu horta dumarka fanaaniinta hal naag baan u jeclaa rubba ku sheegaya akhlaaq iyo edeb ilaahay siiyay gabadha farxiiska ma taqaana هذا وين بقرد عدك iyadoo qof haysta ilaah baa kugu dhaar weli ma asii qof haystaana ماي بقرد وايا بايا gabadhaas ما شاء الله walaalay dhagayso qofka bini aadanka wuxuu yahay buu yahay farxiiska waa Soomaaliyeed yaa ku shirka ka daba yimid oo ka qaarqaylinaya ku sawirayna oo ka qaylinaya ma garto naag la mid ah naaga mar kuma darsako waxaan si markay heesto bay meesha tagtaa حتى بعد اسمها عامة وانا اخلاق private life هاي ستنلوش تقول private ايه بانتي مرة افكار هاي ستد او اخلاقنا الى اسمه مرة تكسيج على بعض هذا وين ما قف مش يهريك اسكا مقاطعة فريق فيش كون فنانة اخلاقنا انا بدأ واتشعر بس اخلاق وانا اخلاق كوزا marka farxiiska meel noqdo baan leeyahay noqdo naaga wada aclaan markay bislaayeen Facebook soo fadhiisanaysaa farxiiska kala noqdo akhlaaqiyo fanaanad baa soo banaba qabliga halka hakee abaasna waxna iska duubina Facebook soo fadhiisanina hadaa Facebook soo fadhiisatid dad kullu iskareeysa waxa tabal ugu baranaya waxa tabal baranaya leeyahay صح qofku anama naagimka barta ka soo ahan fanaaniinta mid oo baahina barta oo waxay tahay sheekada qofka ma soo fadhiiso baraaciyo وصل عايزين هالله انت الشيء ما قرأت هذا وين كان وين هذا يعني مثلا قصيدة كلام السيرة يا والله ما يقدر يفهم كذا ثانك يو ايوه ايوه waayahay maadaama maxaa la dhahaayay walaasheen muna soo tiri abtigay ayaa geeriyooday ma hadli karayo waxaan jeclaystay anigana hadda fariin ayaan u qoray ma garanaysaa hablihii kale labadiba matches baan u reebay waxaan iniga dhigi doonaa habeen kale insha Allah inigoo isku faraxsan oo ma garanaysaa tacsiduna inaga baxdo inaad soo gashaan oo dhamaantiinba xilligaas fariin baan u reebay labada habloodba hadda waad aragtaan naciim wata fariinteeda u dambaysa ilhaana waatan marka waxa weeye iyagana fariintaasan u reebay waa inaad la socotaan ma fahanteen ya ilhaana wataan marka muhiimadu waxay tahay maadaama ay maxaa la dhahaayay walaasheen maxaa la dhahaayay muna tacsi ku timid waxaan leenahay hablaha kalena iska jooga iniguna caawa gabar tacsi baa timid annaga iyo asxaabteeda meeshan ka hadli doona soona gudbinay inaad wada hadlayseen muddo 3 saacadood oo wax yar la aad ka wada hadlayseen qaybta WhatsApp-ka kuna soo heshiiseen sidii maalintii anaga iyo muna markan soo heshiinay aan u nimid waa kuwaas sawiradoodii habluhu way heshiiyeen ma sha Allah tabaarakallah waad aragtaan si fiican u eega saddexda afartooda waa anaga isku keenay saddexdooda iyo labadeedii nabadoon geeskan waxa xigta waxa weeye Tobar Ismaaciil Dayib Naciima ku xigta Muna ku xigta Ilhaan ba xakan geeska kale xigta waan heshiisinay hablahaas saacadaha dheer baan qaadanay imkana dhibkaas soo kala dhax galay oo ma garanaysaa tacsidaas soo dhax gashay maadaama tacsidaas inaan qaarna hadlaan qaarna aamusaan anigu shakhsi ahaantayda ra'yigayga aad buu u hooseeyaa markaas oo kale ma yeelayo tacsi baa timid waxa weeye insha Allah habeen kale ayaan soo wada qaban doonaa saddexda habloodba waliba waxaan rajaynaynaa waliba anagoo intan ka sii badan inaan si soo qabano oo xitaa hablaha kale wax laga tabanayo iyagana amba waxaan ka tabanayno inaan keenno iyagana meesha insha Allah leefkaasan ma garanaysaa isku ku soo noqon doonaa haddaba waxaan rabaa leefkan inaan ka baxo imika inta ku joojiyo mawduucan halkaasan ku xidhaya intaas inagu filan insha Allah waxaan rabaa isla hadda just now lama shamada soo bedesha masacabaad ma cabaadiga ma aqransa shamada bay ni soo bedelaya asla labadii video la kala garan maayo hadii kale shamada ni soo bedelaya waxaan rabaa inaan ka hadlo arin maxaa la dhahaayay baraha bulshada haysata oo aan dadka runta u kala sheego arinta waatan wax yar baan xaga iniga sii daaraya videogan siga soo wicina please qof la wareegiisuna ka dhiiban doona arinta baan rabaa inaan ka hadlo ninkaasaan rabaa inaan ka hadlo waa fahmi kartaan ku socoto qadiij maxamed diiri ugu weyn tahay
سيسي علوش وشقيستو كحيقو عبد الكريم كحيقو وحاجة كحيقو وساقين تاس كل وحاجة تقد اوكي inaan qadiyada ka hadlaan rabaa xalay qadiyadan ba ii taalay inaan caawa soo dhigo meesha aan ka hadlay ma fahanti marka kan hadda waan ka baxayaa isla daqiiqada isla hadda waxya qaar baa xigu alxamdu indhaha maxaad soo marsato taa maxaan soo marsaa sidaydii un baan ahay nolosha shamadu waa qurux badan tahay shamada laftigeeda ku joognaaba nacalaashaydan ku yaal nacalaashaydan shamada laftigeeda ku joognaaba war leefka sida muku sidaya may labada leef raacay shamada inii soo bedelanaya waan ka baxayaa oo inii soo galaya amba shamada aan wada mid kale ka sii dulwanaya ani mariyo badan baa laayaan ka xishoonaya mid kale qab ka sii daba siinaya ma fahantiin ka bacdi xaqasan ka wada hadlayna arintaasan ka jawaabaya ma fahantiin oo bariyahan ba kariigu haysi ya واو خضرة ماشي سوق شيء خضرة دكرو إلا ماشي ويجو شرتي نا خضرة دكرو إلا بلوك كمان صارين أباها يا ماشي تكتي مدبه نا يا خضرة نا بالبلوك إسك قاعد إسكتك كاتك حيرة ذا تاج خضرة دكرو ها وان كلا ريبي يلا بدا فيلم بكلا ريبي يا صح كلا ركن سوق كلا خضرة دي بس كسارة خضرة دكرو وهي معنا هورا دقيقة وان صارة دقيقة وان كسارة ما فهمتي مرة بقى أنا قد لط كيجا معها وهبروا وين هو يد اللي مرة بقى إن لقصت ما فهمتي waxa waan soo tufay waxay yihiin banaanka keenay banaanka u soo saaray waa fahmaysan waqtigiin soo galay naagsiilkeeda banaanka yaalo oo Soomaali kasta isqaawinayso oo YouTube lacag ka raadsanaysa oo umada lacag ka raadsanaysa iyo ani isku lad miyaanuna isku sharaf miyaanuna nahay anaga boqorad baan ahay shanta Soomaaliyeed baan boqorad u ahay hooyo Soomaaliyeed baan ahay nabadoon baan ahay nin nabadoon ay dhalo suldaana anigana nabadoon baan ahay taa inaadari anaga habar isqaawinayso calankeedii tawxiidka ku yaali hoosta iska gelisay lagama yaabo anina ma garanaysaa usoo fadhiista bartan han nooga baxa beeshkeyga nooga baxa nada xiiqsanay waa kasii baxaynaa qola kalaan rabaa inaad ilo riftid hadda isla haddan soo gelayahay maxaad sii leedahay hablaan caawi heshiisinay hal iyo laba ku sii tuur na haddan baxaya haddan soo laabanaya see waay isla hadda topiga hadda inaa xirta marabino naa laga topiga hadda waan xidhaya hablaha waan may diban hablaha ka soclin doona baasha waxay ku qurux badan tahay markan hablaha soo qabto ay habluhu hadlaan markay labada hablo saddexda hablood markay hadlaan ayuu shacabkiina ka daba hadlaya laakiin markay mid maqantaan laba keeno shuf cadawgu waa ka dhex faa'ideysanaya ha munaafiqiin ma la keenaya moogta ani aqada rabo inaan ka hadlo sheekadan si kala rabina waxa dadka waxa rabina inaan fanaaniinta Soomaalida ماذا أمين سندي كمان أركب أمين أكو عاوي أمين فرت صوتك ما أركو أمين واتساب كي سوما هيستو كوزعو فنانين Soomaaliyeed way inay ogaadaan in iyaga inay fanaan yihiin inay iska dhaafaan tabaray ma arkade whatsapp kida isoo si luuqayga isoo dhig whatsapp kan kusoo dhigay Amina kusocdo hiiqsanay hadal mi maqloosaa hadalkayga waxa insha Allah xidibta insha Allah inaad waa laga hadlayaa because waxay fanaan u yihiin hadii laga hadlayna adduunweynaha dhan fanaanadooda way ka hadlaan waxay qabaan barnaamijyo laga soo bi YouTube ka Soomaalida xataa way qabtaa sida Soomaalida shidan oo kale way ka Soomaalida shidan anigu maya Soomaalida shidan waxaan leeyahay Georgia waxa weeye Soomaalida shidan dab bay ku dhex jiraan xid video ma qaadan kartaan Soomaalida shidan anigu YouTube barbana wada ogtiin habtan soo siinaya Soomaalida shidan isugu ay sheegtay Soomaalida shidan waa diraalayaal umada Soomaaliyeed isku diraan fanaaniinta isku diraan dadka isku diraan Soomaalida shidan waxaan leeyahay absolute naga hada oo noo daay dadka inta dadka soo wacdi gelin lahaydaan YouTuberada waa wasakhiin lacag bay ku raadsanayaan inta dadka soo wacdi gelin lahaydaan dadka heshiisin lahaydaan baad tabsi kala dhex dhigaysaan ku soo xiiqsanay mid iyo laba ku soo gabagabay Amina soo qabanayna waa bobsina dhageyso Soomaalida shida waxa ay sameeyaan waa paparazzi iska dhigaan Soomaali maxaa lahaa dadka fanaaniinta ka hadlo dadka caanka ka hadlo ama dadkaas ama filmaanta waxay sportiska waxyaabaha ay faafaaliyaan marka ay kala caan ku helaan wax ka gala ma laha wax kasta ku dhahaayaan ma fahanteen marka waxaan rabaa horta kuwaan YouTube ma joojinayo xad rumaan isku sheego dadkan YouTube ka had sheekada ma joojinayo ilaa laakiin fanaaniinta Soomaalida oo degan adduunka dhan inay maskaxdooda isticmaalaan waaye because iyaga isxigo walaalo next time gabdhaha la isku diray shiisa iyo hiise waa ogahay gabar kasta soo qeylisa oo meeshaan soo gashay oo fanaaniintaas hiise la ku socotaa kunta fiican mogtahay heblaaya ku tiri iyo hebelaa ku yiri waxaan soo afjarnay caaw anagii October thank you marka horta October adiga aad anigu hambalyeena wax fiican aad sameysay waxa buru Facebook dhaxlaada lagu heshiisiyay gabdhahan ka waran ya Facebook ee dagaalka ka bilaabmatay dagaalkana Facebook oo ku dhamaaday oo guuriyo aad weyn marka khayran ku dhaafo laashay thank you naad hay Amina Soomaalida shidan
rabood hala wada saaro dadka Soomaaliyeed isku jiraan soo dhow walaalaha ma maqashaa السلام عليكم حمدي وسلامة ولا شيء عليكم السلام walaalo soo dhow حيقسم سلامة يا قدقين وإيدي سلامة يا عاو عدكي هاي لا يابن دال باي هاي كل كادو قدبي بان كبح كويمت waxaan rabaa inaan ka hadlo midkii gabsaarka madaxa laga keenay ilaal noqola waxaan rabaa inaan ka hadlo horta anigii October iyo adiga waxaan u soconno iyo walaalayna Soomaaliyeed waa hal heshiyo oo Ilaahay laga cabsado sidaan isku dhaama soo galaayo oo Ilaahay abuurtay ama wax aan ka helayno horta meeshaan nooma yaalo ما فهمتي anigu muran wacay الله hadlay ilabiyo waxyaaba qaarkeed ka fajignaada dad inta teemarka ku jira tihiin waxa sameynaysi waan ila arkaya muran ku qayli been ilaaha caayo mo hal kalmad oo waxun ah ya iyo waxay intari ilaahay abuurtay ma jirin xamdiyan u galay walaashay xamdiyan u galay waxaan xamdiyay seetaa ma fiican tahay walaashay ii warnaan dhahay caawan daalana xamdiyay ku salaamay walaal waxaan u galay xamdi ilaahan xarago oo walaashay ah oo aan muddo badan aad u garanayo runtii si walba aan muno ilmaadee aan u nahay oo hooyooyinkeena ay ahaayeen best friend oo dad waa isjecel oo iskorsaday maadaama oo isla korsaday ay ahaayeen taa anooba fiirinayna oo runta u sheegayo runta ayaa fiican mugta runta u sheegayo wallahi iguma soo warcelin godob baan ka tirsanayaa ilahaan godobtan ka tirsanayana markaa London imaaday ani iyada noo taalaa godobtaasna hadday diido Soomaali maxamed aan dhaxdigaya kullay inaa aniga kaga raay doono ayaan hubaa codkeeda qoraalkana ay ii soo dirtayna waan hayaa anigana waxaan ugu jawaabay waan hayaa xamdiyay ilaahay baa cabsi leh micnaha xamdi in ay tiraahdo ilhaan aamina waxaad u socotid haddaad tihiin abgaal iisoo wada safta abgaal ma matasho walaasheen muno waa shaksi aad istagaasheen haladaas way ku jiraa tobarna way ku jirtaa meesha qofka markuu xanaaqsan waa isdhahayaan ma fahanti inaadan dhegeyso way dhihi kartaa xamdiye ma maqashaa taa wax ka qabad male waxba ilaahan ha ugu caroonina ilaahan kadaana filanaynin ari ahaan shakhsi aamira ahaan kamaan filanaynin waxaa la rabay inay aniga ila hadasho hataa waxay tiri walaasha hataa way soo gashay waxaan ku yiri ilaahan walaashay arrinteeda iyo waxay soo gashay waa la soo afjaray walaashay dib dambana hadalkeeda ma maqlaysid waxaan ku yiri walaalay macaani hadalkaa dhinacaas kale ha u rogin maya shalay inaga daa hadda arrintii waa soo gabagabaynay hambalyana u dirti weeyaan habliye hambalyada aniga waa ku faraxsanahay dad walaalo ah oo dumar ah intay isdagaala dhiiggay lahaa ama dadweynihii ama shacabkii ay wax u sheegayeen ama ay horta annaga fanku ilaahana waa ugu horeeyey fanna waan aqaanaa annaga salaamaynin oo waxaa aragnay meel iskugu wada dhimaano haya bahay macaan ma fiican tahay nabad oo la saamaysa garayo laakiin waxba laisku darsanaynin nawaa arkay laakiin in meel laisla soo istaago ilaa heerkan la gaaro anaga fankeeni ayuu wax u dhimayaa daadsi waan ka hadlayay fan baan ka hadlayay ala cabsi baan ku hadlayay runtii aan sheegan ku hadlayay wixii xaqiiqigan ku hadlayay adiga waad ogada kugu goobanay anigii iyo October waa kugu goobanay wax walba aad ahayd waad calaalisay adigoo ooynayso aabbihi hooyo kugu soo qayliyeen ilaahay ajir xasanad aabbihi hooyaa siiyo ma fahantay laakiin ani macnaha waxaa jirta qof waxaad ka mudan tahay iyo waxaad ka mudneen
أنا ما تحمدي إن الهان وأكون فرحسنها يمرو gabadha kala aqoon uma lihi runtii korkaasaan ka arkay ayadaa abaayaday waan ku faraxsanahay war waxaa idiin sheegayaa mar danba hadalkiini yaala maqlina fankana waxaan waa ii sugaanta wuxuu u baahan yahay inaad deeqsiisiin ilmaha say walaahi yaa loo baahan yahay say walaahi marka dagaal haddaad u bilowdaan maxaa soconayo waxba ma soconayo ilmihii waryaalka u ah soomaalida hadalkiina maqlaysaa qoysaskii idinka madaxiina ayay rabaan inay malwalba usoo galaan idiin daawadaan war walaalayaal sidaad ogeed uu shala ahaa maanta ma ahan adduunka waxbaa isreebay waxbaa kala haray adduunkana adoo faraxsan inaad ka tagtaa fiican adduunka adigoo lagu wada qoslaa markaa dhimatid allah walaashan waa dhimatay ilaahu u naxariistay intaas wax weyn bay kuu tahay marka waxaa idinka baryayaa oo idinka codsanayaa haddaad wax isku qabtiin sabuuradaha soo istaaginna guryaha iskugu taga haddaad artiin iscaaya isdila isjeexa qof idin maqlaysa malaha laakiin miidiyaha stop hala stop gareeyo waa idinku faraxsanahay walaal jiraa tihiin haddaad warkii walaalahay aad maqasheen anigoo aa warkayga maqasheenay la mid tahay laakiin anigu wallaahi oo bilaahi oo tallaahi berri baan ka ahay muno ii danaani abgaar ahaan iigu diraani ima dhihin ilaahay baan ka baqayaa qof hebel cay igumayn dhihin micnaha anigana niyadayda mayse ku jirin ilaahayna ma soo geliyo gabdhaha markay intaa gartaa dad waaweyn baa tihiin hooyooyin baa tihiin idinka ilmihiidii idii eeganayaan ma tihiin dad caruura hooyooyin baa tihiin soddon baa kusii socotiin marka hala heshoodo ilaahayna halaga boqo dadka labadooda dhagoodna yaa ha u geynin naarta ha u geynina idinkana insha allah saad buga cad iskugu mariseen oo aad wacadka walaalihin hortiis ugu marteen inaad isu cafiseen war hadal ahaan ma buuxiyaa la yiri marka insha allah khayr waa idin wada salaamaya waa idinku wada faraxsanahay kulligiina adigana ilhaanay dad walaalo 20 sano is yaqaanana waan imaan doonaa waan isqaban doonaa laakiin xaajadaas waa ku qaban doontaa ugu mar dambe waxaan rabaa qofku walaalka gooni kuu soo wacdo inaada wax xun aada dhihin aada caloosha ka xumaynin aamina waa ku ixtiraamaya insha allah samaynayna insha allah walaasha insha allah cafi wasaamax idinka waad mahadsantiin walaalahay soomaali maxamed ay wada dhegaysanaysana aad baa idin salaamaya sarartaan ku jira waan sii seexan waaye waxaan isiri walaalaha oo maanta heshiiskii galay oktoobar ay soo gelisay ayaan sida ku imid waad mahadsantihiin noolaada cafi saamaxamdi aan ku jeclahay love you sister saa u labisantaana aadaan uga helay asalaamu calaykum thank you naadir waa iska marya badan hay aad baan u salaamayna aamina muhiimaddu waxay tahay intaasaan kusoo gabagabaynaynaa isla hadda isla now isla daqiiqadahan dhexdooda waxaan ka hadlaynaa cajirkeena tusnay iyo sida ay tahay iyo dad ma garanaysayo waxa inaga sii hordhici maayeen waa isla hadda han isla joogno dhac kusii markan laakiin soo galo waa inaad sheertii ku caawisaa markaa kaas waa dagaal dee aniga babay muna aamin thank you waan ku leeyahay naadir waa mahadsantahay adigana october sidoo kale dhammaan hablaha iyo inamada intii nagala qayb qaadatay barnaamijkan waa mahadsantihiin laakiin qaybtii kalen hadda gelaynaa يعني ليفك حضر 3 ساعات فلين ليف وما برك حرارة بيجي ما يسود يجي ولا مرة انتني نادي